Ani maxaan jeclahay inaan affirmation aan ku dhameeyo maxay ahaydey nasashada aan suubiyada mindfulness aragtid affirmationka jeceshahay positive affirmationka jeceshahay ayaad suubisan kartaa ani usually English baan ku dhahaa laakiin kuwa Soomaaliya oo kuwa ana English ku dhaho af Soomaaliya aan ku dhahayaa haddaa rabtid kuwaas aad iga daba dhihi kartaa mise adiga affirmation adi aad doorataad dhihi kartaa so maxaad isku dhehaysaa waa nabad ahay maskaxdaada u sheegaysaa wax kasta waa hagaag oo way hagaagayaan inaad qaadato waqti adiga ku gaar ah maxay ahaydey waa nasan karaa kaama dhigayso so inaad kala saartidaa fiican haddaa rabtid waa isku duceyn kartaa waxaad dhihi kartaa waan duceysanayaa naftaada u naxariiso inta badan maxay ahaydey nafteena kama fikirno maskaxdeena maxay ahaydey kama fikirno so maxaad isku sheegaysaa naftaada u naxariiso nolosha way adkaan kartaa laakiin waa ka bixi doontaa because maxay ahaydey inta badan kan maxay kaa caawinaysaa inta badan markaan xanuunsanahay maxaan dareemi karnaa inay waxaan ay weligeen saan aan noqonayno ma ahano so intaas maskaxdeena ayay sii jebinaysaa haddaa dhahday noloshaya hadda waxaan marayo waan ka bogsan karaa waan ka bixi doonaa maxay ahaydey maskaxdaada inay wax yar kuu fiicnaata loo maleeyaa or ilaahay wuu kuu fiicnayn karaa so maxay ahaydey waxyaalaha hadalaha xun ayaa maskaxdaada aad maxay ahaydey aad ka fogeynaysaa rabin inay maskaxdaada wax xun aad isku dhahdid haddaa rabtid waad duceysan kartaa waxaad dhihi kartaa allah caafimaad wuu isiinayaa allah wuu arkaa dhibkan ku jiro wuu ogyahay waxaan dareemayo and then tala saaro ilaahay bogsiinta waqtiga qaadataa